nabad daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijyadii bisha barakaysan ee Ramadaan aan idinkugu talagalnay ee dhinaca diinta waxaanu barnaamijkan diiradda aan ku saari doonaa sida ay isku doortaan lamaanaha diin ahaan haddaba barnaamijka waxaa marti inoogu ah Sheekh Maxamed Sheekh Cali Ibrahim Sheekh marka hore barnaamijku soo dhawo waan dhawahay mahadsanid su-aasha ugu horeysa haddii aan ku weydiiyo haddii aan barnaamijka u guda galno oo aanu gabadha ku hormarno gabadhu sidee bay ku doorataa lamaanaha ama zawjka saxda ah diin ahaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسؤال آد وجود بلارن وأنا السؤال آد وجبهن إن جبر والباء أو الصومالي هذا كفكرته إلهي سبحانه وتعالى جبرنا أمر بوسيي وأنا إياذا قفك وحدارنا يا مركان كله وإياذا قفك وحدارنا يا ننكر ربيتان كي سليمان يا قفك وحلقات البيا وإياذا iyadu ma dalbayso inuu nin guursado iyadu ma dalbayso inuu nin soo doono qofka ilo diin baan ka hadlaynaa iyo dhaqan Soomaaliyeed marka gabadhu waxa la rabaa ninka ay dooranayso rasuulkeena kaleeyhi salaatu wasalaam ninku tilmaamay inay noqoto muxuu rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam hadduu idin yimaado mid aad akhlaaqdiisa iyo diintiisa raadi ka tiin u guuriya وفيرسو هدي او إذين يمادو يو إيمانيا إهلك قبضو إيمانيا وحو سو دونيا قبض هبلايا أبهد أدردد والالهد وهويدد بوكسو دونيا قف كاسمرك محل لقى إيجيا وحل لقى إيجيا أخلاق إيه الدين أخلاق ذا محاكم ذا أخلاق ذا محاكم ذا إن وصنقون قف بلانلاوه inuusan noqon nin gabadhu dee marka kale anagu Soomaali baana dhaqankeenu aad buu u fiican yahay waxaan lahayn dhaqan ninku uu gabadha intuu la baxo reerkooda geeyo isagoon taaban mehrin uu aabihiis adeeras imaanayo gabadhii heblaayaad gurigeena joogtaa hana la siiyo bal u fiirso maxay ku tusaysaa inaan akhlaaqdeenu wanaagsanto zina iyo fuxshi aynan dhaqan u lahayn marka ninka noocaas inta ay haasaawaha iyo sheekada la wadaagto ayaa waxa la rabaa inay eegto bakhiil inuu sanahayn beelo inuu sanahayn nin riximka gooye inuu sanahayn nin akhlaaq xuno qofka soo wacay ama la hadlaya jactad iyo xumaan ugu jawaabay inuu sanahayn baa la rabaa inay iska fiiriso diintu maxay sababaysaa marka akhlaaqday dhisaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri waxa la ii soo saaray akhlaaqda wanaagsan inaan kaamil yeelo markuu rasuulku ka hadlayay wuxuu yiri dadkiina markii jaahiliga la joogay dadkiina akhlaaqda wanaagsana ba islaamka markii la joogana akhlaaq dabeecad wanaag baan ka hadlaynaa marka gabadhu haddaan ku soo koobo waa ogahay barnaamijku uu ku xaqbinaya wari ahaan gabadhu ninka waa inay fiirisaa dabeecad wanaagiisa akhlaaqdiisa iyo diintiisa intaas aan rabaa inaan ku doorato waa tahay marka aad eegto guurka maanta ee Soomaalida maxaad ka dhigi lahayd guurka ma yahay ka hadda aad sheegaysid maya guurka maantay gabadha Soomaaliyeed waxaad isleedahay markaad gabdhaha fiirisid yacni waxay ka degdegayaan ay ka degdegayaan waayo anigu muddo badan baan arrimaha markaan Soomaaliya joogayna in badan baan hay'adaha la shaqeynay arrimaha bulshada ka shaqeynay markaan halkaan joogay 10 sano iyo sanad iyo maazaada macallin baan ahaa qofka marka macallinka ama xafiisyada bulshada ka shaqeynay wax badan buu ku ragalaa gabadhu kaliya waxay fiirinaysaa dhaqaale lacag taasoo ku sababaysa ninkii inuu arko naagtan inay jeebkiisa u socoto oo isaguna intuu ka يعني guursado oo hadda wuxuu doona sameeyo maadaama shalayba wanaag iyo ixtiraam uu sanjirin okay taasi waa tan gabadha haye wiilka oo kale isagana muxuu diin ahaan gabadha inuu ku doorto ay mudan tahay ha ma sha Allah wiilka gabadha markuu dooranayo
xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa gabadha quruxdeeda maalkeeda iyo nasabkeeda iyo diinteeda haddaba marka nasab la leeyahay arrintaas fartaan ku godayaa soomaalidu dhaqan xun bay taqaanaa nasabku ma aha reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel ma tahay nasabku waxa weeyaan gabadhan qoys qurux badan oo sharaf leh oo muxtarimiina ma ka soo jeedaa wiilka la dhashay iyo aabaheed iyo dadkaas fiiri gabadhan marka haddii ay akhlaaqdeedu wanaagsan tahay diinna ay saaxiib u tahay iyada waxa laga eegayo waa xadiidkii rasuulka oo qaybta dambe uu yidhi fadfir bidaati diin taribat yadaak war u xilo gabadha diinta leh waayo gabadha diinta leh waxay noqonaysaa qof diintu ay kantaroosho maxay imaanaysaa waxay ilaalinaysaa ubadkaagii waxay ilaalinaysaa adiga sirtaadii bay ilaalinaysaa ehelkaagii bay ilaalinaysaa ixtiraam bay ku noolaanaysaa intaasoo kale isna laga rabaa in ay ka hesho maadaama diintu ay cadaalad samaysay waxaa badan maantay gabdhaha soomaaliyeed inay yidhahdaan diintaa naga hiilisay diintaa naga hiilisay diintu idinkama hiilin baan leeyahay waxaan leeyahay idinkaanan diintiina baran laakiin diintu xaqa ay idinka idin siisay iyo kan ay aabbaha siisay 80% ay idinka idin siisay baa badan marka gabadhana waxaa la rabaa ninku inuu ku doorto gabar lagu soo tarbiyeeyey diin iyo akhlaaq wanaag loo tusay adduunyadu inay wax qiimo lahayn zawjkeeda iyo ubadkeedana inay si qurux badan oo daacadnimo u korsato ula noolaato kadibna ay baraara iyo barwaaqo u bixi doonto watay hadalkaaga waxaa ku jirtay haddii aanan khaldanayn marka gabadha in lagu doorto nasabiyad maal baad ku soo dartay sax halkaa jilci waa inay gabadha lacag wadataa miyaa noqonaysa dad badan baa isweydiinaya ha maya marka maal la leeyahay haddii ninku uusan hanti haysan horta halkaas aad bay dhibaata maanta uga taagan tahay weliba anigu muddo badan oo aan ka shaqaynayay xafiis Sweden ku yaala oo xafiiska qayrta ama shaqada xanuun badan baan ka soo arkay meeshaas umadu isku haysato gabadha qurbaha joogta way baxaysaa Afrika tagaysaa nin bay guursanaysaa ninka ay guursatay wuxuu isleeyahay gabadhan ka faa'iid hantideeda maalka la sheegayo diintu marka noocaas ma aha nimaanan waxba haysan ayaa raba inuu gabar guursado gabadhii baa hanti haysata gabadhii baa marka waxa ay dhacaysaa in uu ugu xisho in ay iyadu reerka caawiso marka hore isla markaasna mas'uuliyadii ay isaga ku dul dhaqdo oo uu noqdo aabe reerkan hantidii iyo gabadhiiba isla maamulo daacad noqda oo gabadhan garab ku siiya in ay labadooda iskula hormaraan hantidan ilo iyada rabbi u dhiibay laakiin ma aha in uu intuu wixii la dhihi jiray Soomaaliya kale inuu hanti intuu ku soo galo iyada mas'uuliyadu qaadayso iyada mas'uula ma ahan waa hantida ay haysato in reerka gabadhu markay isaga soo dhawayso in uu daacadnimo intuu ku maamulo reerkii hormariyo gabadhii laakiin hadday noqoto inuu intuu soo galo gabadhii ay aaminto uur ay yeelato de insha Allah barnaamijyo kale aan ku kulmi doonaa ramadaanku markuu dhamaado yani markii aad aragtid Soomaalidu heesaheeda iyo riwaayadaheedu waa xikmad miiran riwaayad waxaa jirta berisamaadkii Soomaaliya ahaydoo nin intuu hanti gabar ku guursaday markii hantidii intuu la wareegay markay uur yeelatay waa la matalayaa waa xaqiiqada dhacda mararka qaarkood uu wixii oo dhan intuu kala wareego iyadii ay umulayso ay uur yeelanayso markaas ay leedahay dhada roob noqon weyde كل واحد حسطة وملايين هادو ها بالفيري حكمة كوجرتا هادو ربي كوجود دقة هنقون دقون كبر كبر بو كفانا هنتدي مكلمة دي مركا الله ما بنا هنتدو ما مركا إنه ننكو نقضه راعي إساقو قبضة دبا صعلة أو يابا أي هنتدو صرف فيسو بل وان كدقى يا رجا وحان لايا ور هنتدو دمر كهرادنين إلهي كبقى waynu ka hadalnay bal guurka maantana waynu ka hadalnay guur ma jiro maanta sheekh guur ma jiro maanta xaqiiqadu waxay tahay gabdhaha waxaan leeyahay
waxaan ka wadaa gabdhaha waxaan leeyahay calafkiinu idinkama lumin ilaahay ka baqa calafkiina oo wanaagsan suga nimankan aad xoolaha ku daba cararaysaan iska daaya fahmaysaa xooluhu way dhamaadaan laakiin ninkan insha allahu tacaala mawduucyo kale aan ramadaan kadib ku geli doonaa gabar caqli badnayd waxay tiri waan boobsiinayaa waxay tiri aaba ninkaad isiinaysid saddex arrimood waa inuu kaaga jawaabaa inuu hub la-aan diriri karo inuu hanti la-aan aniga iyo ubadkaba na dharjin karo iyo inuu hooy la-aan gami karo kolley dad badan oo xigmaddaas haya way yaqaanaan buuggayga ku qoran tahay qoyska iyo qurbaha insha allah waa ka warrami doonaa marka hantidan iska daaya gabdhow aad ka daba dhaxdeen ilaahay baa irsaaqada bixiya ninkan hadduusan dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq iyo diin lahayn walaalay mid wanaagsan baad helaysaa isugu calafkaaga okay su-aasha ugu dambeysa barnaamijka waan dheereennay baan filayaa laakiin su-aasha ugu dambeysa raggu ilaahay afar buu u baneeyey ninka afarta guursanaya haddii tii koowaad uu ku xushay waxa weye sidii diintu ay fartay asna markaa diintu kuwa kale barnaamijka galabta inuu kaa dheeraad ku tala gashay laakiin kulle adaa yaqaansaad afar baa ragga alla u baneeyey horta waa waxa weeyaan timir laf baa ku jirta ilaahay afarta waa baneeyey ninka way u banaanta afar inuu guursado gabdhaha muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay baa afarta ku koobay ee caalamka kale 20 30 40 bay qabaan aqbala horta ridaha ilaahay laakiin ilaahay markuu afarta baneynayay sababay ku timid ilaahayna digniin badan oo yani emergency khadca gaduudan ka sheegay waayo mathna wa thulatha wa ruba'a markuu ilaahay yiri فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دبدقة ولو فيرسو إلهي مركا هذا روحي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ورلبايستا رغو مجوغيسان وإذين جيداي لبايستا صدحيستا أفرايستا هداد كبقدان إنا عدالة سمين ويدانا فواحدة أمر كاسا لدبدقة آياتك الوحي لا هاي ما أودان عدالة سميسان بلو فيرس إلهي سبحانه وتعالى هدي قفك دين تان برتو إسلامك وحو كنا ولانا يا راحة نولل وقروح بدن ما أودان باير إلهي سبحانه وتعالى إن عدالة سميسان هاديات سيكسو داداشان هوضا إيلاننا oo qoyskii hore oo hooyadii hore ee kula soo rafaaday ee noloshan iyo maalkan kula soo tacabtay ha ka guurinina oo ha ka dhaginina mucallaqa ninka Soomaaliyeed way fiicnaan lahayd markuu gabadha kala damco inuu guursado gabadhan intuu yimaado inuu waqti baan isla soo qaadanay reer kale aan rabaa inaan sameeyo maxaa tala ah kadib markay tiraado aniga kuma rabo haddaad reer kale samaysanaysid kuraajo inuu u lahaado u yiraahdo haye wixii aan haysano ilaa isla soo rafaadno isla soo tacabnay noo qaybi ilmahana xumaan ha nooga sheegin anigu waan guursanayaa adigu ma idiida ma ku raadi noqon weyd ilo gabadhan waxa la rabaa in aanan canaad lagu noolayn guurku waa gacaltooyo gumaysi maaha barnaamijkan waan dheeraynay sidaad iga codsatay soo gaabi baad tiri laakiin wax la gaabin karo maadan keenin galabtay marka waxa la rabaa markaas hadduu awoodo marka inuu yiraahdo walaalahay khayr allah ku siiyo haddaad ku raadi noqon weyday hadda anigu waan kaa guuray gabadhaas kale aanan guursaday iyadana dib uma rabo adna dib kuma rabo madaxaagana waan ku siiyay ninka doontid guurso hantidan ma laga yaabo maxaa la rabaa marka waxa la rabaa ninoo afar markaad guursanaysid horta reerkii hore inaadan dulmin intaasaan leeyahay inaadan dulmin markaad rabtid marka gabadha kale inaad guursatid inaad gabadhan xaqeedii aadan ku xadgudbin aad baad umahadsantahay sheekh adiga mudan insha allah waa hagaag daawadayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi waxaadna ka daawanayseen janalka iyo sidoo kale page-ka Bulqaas haddaba fadlan haddii aad ku cusub tahay page-ka iyo janalka Bulqaas ha iloobin inaad subscribe like iyo follow aadna soo tiraahdo haddii si aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaawin in aad muuqaalkan aad share garayso si asxaab badan oo u gaaro oo ay uga faa'iideystaan wixii tale iyo tusaale ahna dhinaca commentiga nagula wadaag aad baad u mahadsantihiin